asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. meelo badan oo dunida ka mid a dadka waxay dhibaato weyn ay ka haysataa in dalal ay joogaan ay ka helaan baasabooro, xitaa mararka qaarkood iyaga oo isku tirinaya inay xaq u leeyihiin marka loo eego shuruucda dalkaasi iyo habdhaqanka caalamiga ah ee jinsiyad bixinta. laakiin waxaa la yaab leh inay jiraan waddamo kale oo dunida ku yaala oo waxa kale ee kaa celinaya jinsiyadooda ay tahay inaad haysato lacag oo aad bixinayso. qormadan waxaan kugu soo gudbinaynaa dhowr waddan oo dhaqaale un ay kaa xigto inaad hesho dhalashadooda. inta aanan gudbin waddamadan aan marka hore wax ka ogaano. baasaboorku waa waxa caddeeya jinsiyadda waddanka u dhashay ruuxaas, waxaana sidoo kale caddayn ay u tahay inuu ugu safri karo waddamo kala duwan isagoo haysta damaanad iyo helitaanka fiisaha dalkugalka oo aad ugu sahlanaanaya. sababtoo ah waddankaasi oo laga aqoonsan yahay caalamka oo idil waxay ka dhigan tahay inaad tahay muwaadin waddankaasi u dhashay. aan eegno qormadeenna maanta. 1. maalta. jamhuuriyadda maalta ayaa dhowaan si rasmi a u sharciyeysay in jinsiyadeeda laga iibin doono qof kasta oo qariib ah keliya haddii uu iska bixiyo lacagteeda oo gaaraysa 650 kun oo lacagta midooda Yurub ah. tallaabadan oo ayaa dowladda waxay ku sheegtay mid la doonayo in lagu firfircoonaysiiyo dhaqaalaha dalkaasi laguna soo jiito maalgashadayaasha caalamiga ah inay yimaadaan xukuumadda Maalta, waxaana ay filaysaa in sanadkan dakhli badan uu ka soo galo jinsiyadda la iibinayo. waxaa dhaqaalaha ay rajeynaysa ka mid ah inay hesho 30 milyan oo lacagta Yurub ah, taasoo micnaheedu ay tahay in sanadkan kii ugu horreeyay oo nidaamkaas la hirgeliya ay ku heli doonto dhaqaale aad u fara badan. 2. Ireland. si aad u hesho jinsiyadda dalkan Ireland waxa ay hore u jirtay in aad ku nagaato ugu yaraan 5 sano ama inaad guursato gabar dalkaasi u dhalatay, laakiin laga bilaabo sanadkii 1990kii sharcigaasi wax ka bedelid ayaa lagu sameeyey, waxaana ay dowladda ogolaatay in ganacsatada iyo maalgashadayaasha ajaaniibta ah ee dhaqaalaha badan haysta in jinsiyadooda la siiyo si loo dhiirigeliyo in kuwo kale ay yimaadaan. arrintaas oo si weyn uga caawisay inay kor u kacaan dhaqaalahooda iyo guud ahaanba habdhaqanka nololeed ee dalkaasi. jamhuuriyadda Dominican waa jasiirad aad u yar oo ku taala badda Caribbean-ka ee Latin America, aadna ugu dhow dalka Venezuela. jamhuuriyadda Dominican oo dadkeedu uu yahay 10 milyan waxay haysataa dhaqaale xumo aad u dheer, taas oo la sheegay in dhibaatooyin kala duwan ay la soo gaartay. daawooyinka ee dhaqaale xumadaas kula tacaalaysa waxaa ka mid ah in dowladda ay soo saartay sharci ogolaanaya in qof kasta oo bixiyo 100 kun oo lacagta Yurub ah in la siiyo jinsiyadda jamhuuriyadda Dominican, iyada oo weliba laga qaadaynin sharciga aan loo diideynin in jinsiyaddiisii horena uu haysto. 4. Belize. waa dal ku yaalla xeebaha waqooyi bari ee bartamaha qaaradda Ameerika. dalkan oo tiradiisa dadkiisa ay gaaraysa 341 kun oo qof ayaa shuruucda jinsiyadda bixintu waxay u ogoshahay in uu bixiyo dhaqaalo, waxaana sidoo kale loo ogolyahay ruux kasta da'diisu ay ka weyn tahay 45 sano jir oo howlgab noqon kara. weliba jinsiyadda oo keliya lama siinayo oo waxaa ruuxaasi laga dhaafayaa canshuuraha ku waajiba, waxaa la siinayaa meel uu dego. haddii laga tegi waayo sharciga keliya ee ku xidhani waa in dakhliga qofkan uu soo gala uu 24 kun oo dollar oo sanadkii aanu ka badnaan. 5. Macau. waa dowlad aad u yar oo ku taalla xeebaha koonfureed ee dalka Shiinaha. waxaa hore u haysan jiray dalka Portugal ama Boortaqiis, laakiin iminka waxay raacsan tahay dalka China. waxaa kaloo ay ku nidaam tahay Hong Kong oo ah dhul maamulkiisa u madax bannaan yahay, laakiin haddana ka tirsan dalweynaha Shiinaha. dalkan dadkiisu waxay gaarayaan 624 kun oo qof. waxaa ku yaala xarun aad u weyn oo lagu qamaaro. waxaa la aaminsan yahay in xaruntan qamaarku ay tahay isha dakhliga ah ee ugu muhiimsan ee dalkaasi uu ka helo. dadka waxaa loo ogolaaday in dhaqaalo badan ay iska bixiyaan kadibna la siin doono dhalashada dalkaasi. inkastoo dalkana uu aad u yaryahay, haddana waxaa u yimaada codsiyo tiro badan oo jinsiyad doona. sidaasi awgeed waxa uu soo saaray sharci lagu bixinayo jinsiyadaha dalkaasi. ruuxa doonayana waxaa laga qaadaa 125 kun oo lacagta dalalka Yurub ah. waa waddamada dhaqaalaha ku badasha dhalashada dalalkooda. waxaa laga yaabaa in dad badan ay isweydiinayaan dalal ku yaala Yurub iyo Afrika. dalalka Afrika iyo Yurub qaarkood way adag tahay inaad hesho dhalashadooda. dalalka Yurubna waxa ay yihiin kuwa horumar gaaray oo dhaqaalo badan aan u baahnayn. taasi waxay keentay in aysan marnaba ku fakerin inay iibiyaan jinsiyadahooda. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. haddii ay tahay markii kugu horreysay subscribe dheh si aad u hesho muuqaalo kale. mahadsanid.